kadib 22 bilood oo Israa'iil xasuuq ku haysay Gaza, hadda marinka Gaza ayaa u muuqda meel aan lagu noolaan karin, waxaana muuqaaladii ugu dambeeyay ee ka yimid halkaasi ay yihiin kuwa tiiraanyo wata. Waqtigan dadkii dhismayaasha dhaadheer deganaa ayaa hadda ku nool teendhooyin, waana kuwa wajahaya duruufo qalafsan oo xagga nolosha ah. Toddobaadkan waxaa meelo badan oo dunida ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo go'doonka Israa'iil gelisay Gaza, waxaana banaanbaxyadu ay ka dhaceen 12 dal oo ku kala yaala qaaradaha Afrika, Yurub, Aasiya, Australia iyo Ameerika. Dibadbaxayaasha ayaa sheegaya inay u adkeysan waayeen xaaladda adag ay wajahayaan dadka Gaza, waxaana ay tilmaameen in waqtigan la joogo xilliga Israa'iil lagu qasbi lahaa inay ka hor wareegto dadka gargaarka u baahan ee u geeriyoonaya cunto la'aanta. Mid ka mid ah qorayaasha u dhashay Israa'iil, David Grossman, ayaa hortagay warbaahinta isagoo yiri, muddo dheer ayay igu qaadatay inaan ka fogaado adeegsiga ereyga xasuuq. Maanta waxaan waayay marmarsiyo, waxaan oranayaa waxa Israa'iil ka wada Gaza dhab ahaantii waa xasuuq. Si xanuun badan oo qalbi jab leh ayaan u qirayaa arrintan. Hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegay in Gaza ay ka jirto gaajo si ba'an u saameysay dadka, waxayna eedda dusha uga tuureen Israa'iil oo gacanta ku haysa dhammaan sahayda gasha dhulkaasi. Israa'iil ayaa ku adkaysatay inaysan jirin wax xayiraad ah oo ay saareen kaalmada bini'aadanimo, iyadoo sheegtay inaysan jirin gaajo halkaasi ka jirta. Dhinaca kale, xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee ICC, Karim Khan, ayaa sheegay in har iyo hoy ay u diideen Mareykanka iyo Ingiriiska, iyagoo maalin kasta hanjabaad iyo cagajuglayn aan kala joogsi lahayn la wadaagaya sabab la xiriira go'aamada ka dhanka ah Israa'iil iyo inuu waaran xariga u jaray Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca. Mareykanka iyo Ingiriiska waxay ka doonayaan Khan inuu faraha kala baxo baaritaanka uu ku hayo dambiyada Israa'iil ka geysanayso marinka Gaza. Kaliya Khan ma ahan ee xitaa qoyskiisa ayaa sidoo kale wajahaya xaalad adag, waxaana si joogto ah ugu soo dhacaya taleefano loogu sheegayo inay noloshoodu khatar ku jirto. Tirooyinka ugu dambeeyay ee qaramada midoobay ayaa sheegaya in ugu yaraan 1373 Falastiiniyiin lagu dilay iyagoo raadinaya cunto tan iyo dabayaaqadii bishii Maaj. Inta badan dadkaasi waxaa lagu dilay meelaha sahayda lagu qaybiyo ee u dhow xadka, gaar ahaan kuwa uu taageerayo mashruuca gargaarka Gaza ee ay maalgelinayso Israa'iil iyo Mareykanka. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, Israa'iil ayaa ku eedeysay Xamaas inay foodo ka abuurayso agagaarka goobahaasi, iyadoo sheegtay in ciidamadeedu aysan si ula kaca u beegsan dad rayid ah. Ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil, Ehud Barak, ayaa sheegay tallaabooyinka militari ee hadda ka socda Gaza inay yihiin kuwo gabi ahaanba aan qiil lahayn, islamarkaana aan wax xiriir la lahayn ammaanka Israa'iil. Barak, oo u muuqda inuu arkayo dareenka dadweynaha caalamka ee ka dhanka ah Israa'iil, ayaa u sheegay Sky News wax kasta oo dhaca inuu mas'uuliyaddeeda qaadayo Netanyahu oo aan dusha loo wada saari karin Israa'iil, isagoo intaa ku daray inuu ka soo horjeedo wax kasta oo hadda ka dhacaya Gaza. Dhinaca kale, waxaa dib u xoogeystay qorshaha Israa'iil ku doonaysay in dadka reer Falastiin ay uga rarto Gaza, waxaana arrintan waqtigan si weyn u maalgelinaya Mareykanka, kaasoo Israa'iil ku gacan siinaya sidii uu qorshahan u suurageli lahaa. Wargeysyada caalamka badankood ayaa ku waramaya inuu Trump u ogolaaday Netanyahu inuu duulaankii ugu sarreeyay ku qaado Gaza si marinka Gaza uu u noqdo dhul ay la wareegto Israa'iil. Netanyahu qudhiisa ayaa arrintan xaqiijiyay mar uu wareysi gaara siiyay Fox News. Wuxuu wareysiga ku sheegay in Israa'iil ay heshay ogolaanshaha Mareykanka ee ballaarinta duulaankeeda marinka Gaza, isagoo yiri, ujeedadeenu weerarkan waa inaan si buuxda ugu talagalno inaan Gaza la wareegno, la sugo amniga Israa'iil, la baabi'iyo Xamaas iyo in la xoreeyo Gaza. Xaaladda Gaza ayaa saacadba saacadda ka dambeysa ka sii daraysa, waxaana xusad mudan in ku dhowaad 12,000 oo carruur ah ay wajahayaan xaalad nafaqo darro baahsan ah.